السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت معنا ونكسن دمان داوديش قيمها هي قدرت مدنو وقتي كاستيد انتهي ميل كاستو جوجتان وقتي وحيدين وعنادو بدبادين حريستي ابنا كركيناها هاتو واني مصطفى حسن محمد halka adiga la socotaana waa Mustafa Tafri channel kusoo dhawaada insha Allah taala barnaamijkii taxanaha aan kaga hadli jirnay ama aynu kaga hadalnay siiradii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qaybteeni labaad waa cashirkeeni labaad kusoo dhawaada barnaamijkeeni taxanaha ahaa ee siiradii Nabigeenii Muhammad sallallahu rabbi wa salaamuhu alayhi qaybtii labaad. Aamina bintu Wahab sagaal bilood kadib waxay umushay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. dhalashadii Nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu xaqiijiyay المرحوم محمود باشا الفلكي oo ahaa sheekh weyn oo qoraa ahaa taariikhiyan ahaa oo reer Masar ahaa oo Masaari ahaa. waxa uu yidhi Nabigu sallallahu alayhi wa sallam waxa uu dhashay subax isniin ah bisha Rabiicul Awwalna ay tahay 9 sanaduna ay tahay 571 miilaadiga. waxaa loo badan yahay inuu Nabigu sallallahu alayhi wa sallam u dhashay 12 Rabiicul Awwal. sida loo badan yahay waxa weeyaan 12 Rabiicul Awwal ayaa u badan yihiin culimadu. oo ku beegan 20 bisha Abriil تضرب قليا شنبقل عفوا شنبقل كوبي تضواتا تاريخ الميلادي. إن سنة كنا وحال إلى وها عام فيل وسندkii abaraha uu soo weeraray isagii maroodiyaashiisii Kacbada ay soo weerareen si ay waxa weeyaan u dumiyaan. Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala difaacay. halkan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu kaga waramay qisadaas suuratu fiil. alam tara kayfa facala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala calayhim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. النبي صلى الله عليه وسلم مركو لشيء وحاق بشيء شفاء أم عبد الرحمن بن عوف. markuu Nabigu sallallahu alayhi wa sallam dhashay waxay hooyadii Aamina bintu Wahab fariin u dirtay awowgii Cabdilmudalib iyadoo ugu bushaareynaysa dhalashada Nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. markii ay fariintu gaadhay awowgii waa uu soo cararay waa uu yimiday isagoo faraxsan oo bushaaraysan waxa weeyaan ku faraxsan dhalashada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo inaka uu yahay awowga uu yahay. waxa uu bixiyay magaca Muhammad oo ah Nabiga sallallahu alayhi wa sallam magaciisa.
magacani ma u ahayn carab horteed mid faafsan, magacani ma u ahayn. Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa xanaaneysay Ayman oo la odhan jiray Baraka al-Xabashiya. waxay addoon u ahayd nabiga aabihii Abu Cabdullah. ciddii ugu horreysay ee nabiga sallallahu alayhi wasallam nuujisay Xalimatu Sacdiya may ahayn, se ciddii u horreysay ee nuujisa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay ahayd Suwayba oo addoon u ahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam adeerkii Abi Daalib. haddaba ciddii u horreysay ee nasiib u yeelata barbaarin iyo nuujin ay barbaarisay nuujiso nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay ahayd Xalimatu Sacdiya. waxa ay nuujinaysay oo ay barbaarinaysay 4 sano nabiga sallallahu alayhi wasallam. intii uu nabigu alayhi salaam dhex joogay, ehelkooda waxay ahaayeen kuwo barakada iyo barwaaqadu ay dabooshay, waayo ilaa waxaa dhex joogay oo la noolaa khayru khalqillah, khaatimul anbiyaa'i wal mursaliin, nabiyuna Muhammad salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena. intaynu ku kulmayna barnaamijkan lamid ah waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.